magaalada Virginia ee dalka Mareykanka waxaa lagu soo gabagabeeyay ciyaaraha kubadda cagta Soomaalida ee Washington kaasoo ay soo qaban qaabiyeen sanadkii 24aad Washington Somali Stars isla markaana waxaa diiradda lagu saarayay horumarinta dhalinyarada iyo sidii loogu weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn. kooxo ka kala socday magaalooyinka Mareykanka iyo Canada ayaa ka qayb galay tartanka. waxaa dhinac socday tartanka dhalinyarada 6 koox oo markaasi ay ku tartamayeen dhalinyarada cuslaatay ama ciyaartooydii hore oo qaarkood u soo ciyaari jiray naadiyadii heerka koowaad ee Soomaaliya iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya kuwaas oo ka kala yimid isla Mareykanka iyo Canada. labada tartanba waxaa koobka ku guuleystay kooxaha ka socday gobolka Ohio. inkastoo guusha ay muhiim tahay haddana qabanqaabiyaashu waxay sheegeen in ujeedku ka qoto dheer yahay koob la kala qaado. waa kan Jaamac Maxamed Xirsi oo ah madaxa Washington Somali Stars ee tartanka soo qaban qaabiyay oo iga waramay muhiimadda tartanka. ciyaarahan waxaa waaye showcase sida dhalinyarada Soomaalida oo North America joogto in sida loo arko dadka scoutka jaamacadaha sanadkii labaad sameynayno. waxaan kaloo sameynay markaan tagnay Ohio markaan tagnay la soo dhaafay waan geynay rag hadda jooga maanta daawanayo waa wiil baa laga qaatay meesha maanta alxamdulillah wuu ciyaarayaa. maanta waxaan rabnaa Labor Day inay saas ay noqoto. waan u bilaabnay last year waa dhalinyaro laga arkay sanadkan way daawanayaan hadda gameka u socdaa. muhiimadda waxaa waaye in la soo bandhigo caruurteena mustaqbalka ay leeyihiin banooniga iyo dadkii banooniga qaadan lahaa. ciyaartooydii hore ee Soomaaliya ayaa rumaysan in dhalinyaradu ay haystaan fursad aanay iyagu horay u helin. waa kan Cali Muudey oo hore ugu soo ciyaaray kooxdii madbacadda heerka koowaad ee Soomaaliya isla markaana ka socday ururka Today ee ka dhisan magaalada Toronto. bismillahirrahmanirrahiim aad u mahadsantahay Xuseen. munaasabada ma ahan ciyaar kaliya waa saddex gal bulsho. Washington mataantii waxa waaye ururka Today early 90 ilaa hadda isdaba joognaa. ujeedada laga leeyahay saa ujeedid Xuseeno waa dhalinyaradan ujeedada youthka ah oo mustaqbalkii Soomaaliya ah waxaan annaga aan loo bilaabay waxaan jiilka naga horeeyay annaga iyo jiilka naga dambeyn doona. munaasabada waa intaas. qaar ka mid ah ciyaartooyda cuslaatay iyo hogaamiyaasha bulshada ayaa ka hadlay gabagabada ciyaarta. waa kuwan Caydiid oo ah reer Rochester Minnesota iyo Yusuf Abikar Caliyo Baby oo ka tirsan ururka Today ee magaalada Toronto. والله ومهمة أكون حتى وعيالها وإسبرشة فرق عيالها وحلا قبضة لوبر دي وحنا قبضة واشتن إستار لا يحفظ الله وصلنا يهدي قبلنا يوم جدو جود إمام الجامعة وقدموا هنا أدي مهسيهم قدمينها أي سوق كان ولا في ستيت يا لقول لماذا حسين مع السند هل كان حتى صاحبتي عثمان runtii farxadeen oo tahay aan reer Toronto ciyaarahan inaan ka soo qaybgalno dhowr iyo 3 sano ugu dambeeyay. muhiimadana ay tahay maaragtay isdhexgalka bulshada integration in la sameeyo in la is arko in caruurta looga badbaadiyo crime-ka maadaama lagu jiro xilliga iskuulada xiran yihiin caruurtuna ay waqti badan hayaan in loo sameeyo sidaad arkayso tournamentiyaal iyo is arag iyo kulamo ayaga u gaargaar ah si ay uga fogaadaan waxyaabaha keeni kara in caruurta ay dhib ku dhacaan. Cabdiqaadir Shiidaaye wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ka qayb galay tartanka. wuxuu rumaysan yahay in dhalinyarada ay fursad u tahay tartanada noocan oo kala ah. faa'iido waxay u leedahay try out badan helayaan in la xulo helayaan qaranka Soomaaliya way anfacayaan. adduunka hore hadda wada daawanayaan ciyaartan waxaa laga yaabaa ugu yaraan ilaa 5 ilaa 10 ciyaartoy laga xusho dhalinyaro aad u yar oo meelo fara badan ka duway ka yimid waaye all the state of Mareykanka ah. Jaamac Maxamed Xirsi iyo Saciid Xaaji Nuur oo kamid ah madaxda Washington Somali Stars iyo qaar kale oo kamid ah dadkii ka qayb galay tartanka ayaa la hadlay ciyaartooyda xilli ay sidoo kalena bixinayeen abaalmarinada ciyaaraha. And I think Bilal is a great example of kids that just need a chance. So I love what I saw in Ohio. I love what I saw here. Last year I was born in Jaamac. Thank you for this opportunity. But we're all used to at Minnesota, Toronto, Seattle, tournament. One way deep behind Minnesota, we feed it, tournament. It's a showcase. Showcase and tournament we could have doing. Showcase while you're getting washed. Tournament, you're there to win. So you're not going to behave, you're not going to showcase anything you're doing. And this is beautiful.
waxaan ku darsan lahaa laakiinse aniga I love the pro aspect of it, but I feel like college is needed. koobkan waxaan siin doonaa 35 plus runners up. Most of them were my former teammates. Again, some of them coach baan usoo noqday, and still we maaragtay meelaha markaan isku aragno we joke around a lot, and I have a lot of respect for them, from qofka ugu yar ilaa qofka ugu weyn. Captain, please, Ohio United. Ohio United. Captain. xaflad lagu soo xiriyay ciyaaraha isla markaana abaalmarin lagu guddoonsiinayay dadka qaar ayaa lagu qabtay isla waqooyiga Virginia, taasoo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada. xafladda ayaa xiritaan u ahayd tartanka, waxayna dad badan tilmaameen muhiimadda ay leedahay dhiirigelinta dhalinyarada iyo isku haynta bahda ciyaaraha ee ku kala nool qurbaha, iyadoo dadka qaar ay xuseen dadaallo ay wadaan oo ku saabsan sidii wax loogu qaban lahaa ciyaartoydii hore ee taageerada u baahan. sidoo kale dadka ka qayb galay munaasabadda ayaa tilmaamay in ciyaaruhu ay yihiin kuwa lagu badbaadin karo dhalinyarada. xafladda xiritaanka ayaa isugu jirtay hadal jeedin, dhiirigelin, madadaalo iyo abaalmarin la siinayay kuwa loo gartay inay muteysteen. waxaa sidoo kale goobjoog ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka, Danjire Daahir Xasan Cabdi. Washington Somali Stars ayaa lagu ammaanay in 42 sano ay u dhabar adeegeen qabashada tartankan, iyagoo ujeedku ay ka leeyihiin ay tahay badbaadada dhalinyarada Soomaalida. dadka abaalmarinta la guddoonsiiyay waxaa ka mid ahaa Abuukar Shaash oo hore ugu soo ciyaaray kooxdii Wagad iyo xulkii qaranka ee Soomaaliya, Mataan oo caan ka ah dhanka madadaalada isla markaana ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee Atlanta, Georgia, iyo qaar kale oo badan oo goobjoog u ahaa xiritaanka tartanka. sidoo kale waxaa goobta joogay u qaybsanaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ee waqooyiga Amerika, Maxamed. waxaa tartankan goobjoog ahaa oo ka qayb galay Kareem iyo FD oo ah wakiilo u kuurgelayay dhalinyarada intii uu tartanka socday, kuwaas oo xushay dhowr ciyaartooy. Xuseen Nur Xaaji, Virginia.